بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا وناكسن داوديال ميل كستو جوجتان iskastoo daawaneysaan ku soo dhawaada Tuuta TV. waxaan uga hadli doonaa warbixin ku saabsan xulka qaranka Soomaaliya guuldaradii xalay ee ka soo gaartay kulankii tartanka koobka 17 jirada ee qaaradda Afrika ay la ciyaareen xulka Algeria iyo Soomaaliya. sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa garsoorihii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo heer caalami gaaray kaasoo ka soo muuqan doona horyaalka qaaradda Yurub mid kamid ah waa horyaalkee barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii aad idmo. barnaamijka waxa soo saaray in la socodsiinaanu Guuleed Cali Cusmaan markaan waxaan guud gali doonaa qodobada aan soo sheegnay. xulka qaranka Soomaaliya ayaa xalay kulankii la wada sugayay ee tartanka ciyaartooyda daadooda ay ka hooseyso 17 jirada ee qaaradda Afrika ee AFCON ay markaasi xalay ay ka hortageen wadanka Algeria ciyaarta kulankoodii koowaad oo ay markaasi noqotay ciyaar natiijadeedu ay in badan la wada sugayay ee Soomaaliya guuldaro ay kala kulantay. xulka Soomaaliya ayaa markaasi laga adkaaday isagoona laba gool degdeg ah shabaqooda laga soo gaaray taasoo dhibaato weyn ay ku noqotay xulka Soomaaliya. weli Soomaaliya fursad ayay haystaan, waxaa laga yaabaa kulamada soo socda inay markaasi guul ay gaari karaan. laba kulan ayaa ugu harsan tartanka ee AFCON ee qaaradda Afrika ay markaasi ciyaari doonaan. kulanka xiga Soomaaliya ayaa markaasi isbedel weyn ay ku sameyn doonta shaxdooda iyadoona ciyaartooyda ay markaasi sameeyeen dadaalo badan oo guul ay ku gaari karaan iyagoona doonaya inay markaas soo laabashada Soomaaliya ay qayb ka noqoto. xulka Soomaaliya horey waxa uu soo guuleystay tartanka qaaradda Afrika ee ciyaartooyda 17 jirada oo ay markaa ugu soo baxeen ugu dambeeyay tartanka qaaradda Afrika ee 17 jirada oo markaasi qayb ay ka yihiin. waxaana inta ugu badan ee la sugayay in tartankan ay ka soo baxaan natiijo wanaagsan walow Soomaaliya ay caqabad badan ee kala kulantay xilligan oo ay markaa ciyaartooydii muhiimka ahaa ee xulka qaranka Soomaaliya ee laga reebay sida markaasi Idris iyo sidoo kale Cabdixafiid iyo xidiga badan oo waxtar u ah xulka Soomaaliya kuwaas oo ku dhacay MRI-ga. sidoo kale Soomaaliya ayaa weli natiijadeedu tahay mid aad u weyn oo kulankaasi oo kaliya ee laga adkaaday. guuldarada ee Soomaaliya soo gaartay maxaa laga bartay? xulka Soomaaliya ama wiilasha Ocean Star ayaa cashir u noqon doonta guuldaradan oo ay markaasi kala kulmeen dhigooda dalka Algeria oo tartankan ay martigelinayay ciyaartan oo ka dhacday garoonka Nelson Mandela xalay markay taariikhdu 29 iyadoo waqtiga 4 saac habeenimo ay Soomaaliya u ahayd laakiin dalka Algeria xilligaas waxay u tahay 2 saac habeenimo. waxayna Soomaaliya cashir ayayna ka qaateen ciyaartii xalay dhacday iyadoona ciyaartooydu ay sameeyeen dadaalo badan iyo macallin Nuur Amiin oo ay markaa kaashanayeen xidiga muhiim ah oo xulka Soomaaliya inay guul gaaraan. taa ayaana keentay in isbedel weyn ay ku yimaada. maxaa iska bedelay tan iyo markii xidigaha laga reebay? ciyaartooyda Soomaaliya wax badan ayaa iska bedelay iyagoo oo ay ku tashanayeen in ciyaartooy muhiim ah oo ay koob isla qaadeen waqti badan iyo juhud badan lagu bixiyay oo ay markaa guuldaro xanuun badan ee kala kulmeen. niyad jab aad u weyn ayaa markaas halkaasi ka soo gaaray. casharada laga bartay ayayna ka mid tahay. sidee hadda ugu guul gaari karaan guuldarada ay ka soo gaartay? waxay u baahan yihiin xulka Soomaaliya in markaasi dhanka farsamadoodu ay aad u sareyso oo markaa taxaddar badan ay muujiyaan. qaladaadka ugu badan hadda Soomaaliya waxaa laga tabanayay dhanka weerarka oo gool badan lama dhalin oo markaa xidigii weerarka waxa ay muujiyeen dadaalo badan walow aysan dhalin. dhanka daafaca aad ay u adkaa laakiin goolka koowaad qaladka koowaad waxaa lahaa goolhaye Marshaale oo markaasi banaanka yimid taasoo fursad helay xidigaha kooxda kubadda cagta ee dalka Algeria taasoo shabaqa markaasi gaareen isagoo aan goolhayaha markaasi banaanka cad u taagnaa. dhanka kale waxaan eegi doonaa garsooraha weyn ee Xasan Bari oo ka mid ah garsoorayaasha heerka caalami ee dalkeena Soomaaliya ayaa ka mid noqday garsoorayaasha dhexdhexaadin doona mid ka mid ah horyaalada qaaradda Yurub dhaca.
xasan bahri oo ka mid ah markaa dhanka garsoorka kuwoodii ugu muhiimsanaa dalkeena Soomaaliya ayaa ku sugan dalka Finland waxa uuna dhexdhexaadin doonaa ciyaaro ka mid ah heerka caalami ee horyaalka dalkaasi ee Finland heerka labaad ee garsoorka. xidigan ayaa waxa uu fursad u helay inuu markaasi ka hayaamo dalka Soomaaliya inuu hayaamo wadamada qurbaha isaguna xirfadiisa markaasi sii hormariyay waxauna haystay marka hore leesinka garsoorka ee qaaradda FIFA oo markaasi ama FIFA ay bixiso. waxa uu hadda ka mid noqon doonaa garsoorayaasha Soomaaliyeed kuwooda ugu caalimsan oo burburkii kadib ay dhexdhexaadin doono kulamo ka baxsan horyaalka Soomaaliya. waxayna noqon doontaa taariikh Soomaaliya u soo hoyatay bahda isboortiga ayayna qayb u noqon doontaa. guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena markaa Tuuta TV xogta ciyaaraha dalka kala socota.